الله وبركاته صاحبي ما كسر هذا 10 أسبوع كم من 10 هذا إني تحناها إن هالكن عن كسر قد بين جري ما 10 كأنه على بساط نقبرتين وحكوا سابسين هاي إن English vocabulary أما إريا سب سدي عدد إنه هاي English new words هالكن هاي نوع قرن إن أف سومالي إريا سب مركا إن شاء الله دقيسي هبون الصات وحنا عدين سؤال أنا وكله قفك كلك أو عدين عندنا وشيء كلكي تسألان وكله لقى ربنا العديسو إن هذا مخراتي نقطة هدي أي شيء عن تسألان وكله وحبات سميسي وحنا سمياتي عدين تكين على الأول هاي شيء أنا على هذا عدين تسكين على الأول مركا عدين وعيه autonomy وحنا ده إن مذهب بناني وstate أما ودن حر وإسكي سمامله وقبل أما ودن حر وإسكي سمامله autonomy وحوي مذهب بناني ودن مذهب بنان أما state مذهب بنان أديا كل جن وحال غفور وحلا وضع تصالح وحباد أركتي فرسم أهم وحلقوا بري وحيبات كدكتي وحباد ربطا إنا دوح آخر ربطا وحالقوا بري النظام كقاب كتصالان وكلا أرضك وحلو آخريا أما وحلو قراء لبري النظام كاتولك كل جن أديا لقبس الشو أما كل جد واي واحد برتي والله قبصتوت كدكتي واي عمل waan garanay adolescence waxa waa qaangaarnimada tusaalahan oo kale ilmaha qofka 3 stage ayuu maraa ugu yaraan ilaa 4 stage oo horeeya waxa weeye infant waa ilmaha 6 bilood ee wixii ka yar jail buu u gudbaa oo hal sano iyo wixii ka weyna waa jail tusaalahan oo kale 12 sano andhana wixii ka weyn waa da'da qaangaarku madaxa la galaa 12 diinta islaamka waa 15 inta qofka haddii aysan calaamadaha qaangaarku ka soo muuqanin qaangaar lagu xugmin karo dhaqamadan kale reer galbeedkana waa 18 sano marka waa da'da qaangaarnimada ee caruurnimadii uu qofku ka baxayo ee qof weyn ahaan oo qaangaar ugu gudbaya waxa la dhahaa adolescence waa da'da ugu dhib badan nolosha bini'aadamka qofka laga yaabo inay marin habaabin badan uu la kulmo han garanay appeasement waa raali gelin appeasement raali gelin ayaan dhahaynaa abrupt waa si lama filaan waa dhacdo kuugu dhacday si aadan ku talagalin abrupt ay noqonaysaa iyaduna appeal waxa way noqonaysaa rafcaan aggregate waxaan dhahnaa si xumayn waa marxaladda wax uga sii dari kara ama xaaladda sii xumayn kara qofku soo kolkii hore qof baa ka maqnaa waad ka walwalsanayd xilligii qofku inuu yimaado aad ka sugayso iman waayo dhacdaa ku qabsatay waa waxyaalo dhacdooyinka tusaale aan soo qaadan karra ee wax sii xumayn kara ama laba qof baa wax isku hayeen wixii xal lagama gaarin waa sii xumayn aggravate sii xumayn wax marxaladda ama xaalad taagan uga sii dara agitate kicin waaye iyaduna ama salaano kale qof baa bulshada kicinaya ama qof baa dareenkiisii sii kacay waxaa lagu hebel baa waxaa kugu lahaa waad ka xumaatay dareenkaaga kacay waxaa wada aragtayba qofkii oo wixii la taagan bannaanka qofkaas waa ka sii daray waa kicihaya emotionkiisa iyo dareenkiisu agitate waa kicin ay noqonaysaa divergent kala duwan waa wax different ah divergent wax different ah tusaale haddaad u soo qaadano waxaan dhibcaha roobka hawaday ka wada imaadaan laakiin isku meel inta badan kuma dhacaan way kala midba meel buu ku dhacaa divergent wax kala duwan divergent allergies ereygan aad baanu isticmaalnaa inaga hebel baa wuxuu ku leeyahay allergy baa igu dhacay qof baa korka booga ka soo daatay allergic ama xasaasiyad waa allergy ama xasaasiyad laakiin qoraalkiisa un baa hadda muhiim inoo dhawaaq ahaan waynu wada naqaanaa allergies waxa weeye xasaasiyad ama allergy anticipate odoros saadaalin ereyga saadaalin inta badan waxaa loo isticmaalaa ama loo isticmaalaa ereyga forecast laakiin kan waa odoros waa wax laga niqaashay laga wada hadlay in badan la rogrogay qiyaasay macnaha wax badan la odorosay waaye isa iska dhow yihiin waan garanay ample ku filan inaafa la mida shantiya la mida erey badan baa la mida absolutely gabi ahaanba ama diidaha noqoto ama sax noqoto absolutely obligate واجب threat hanjabaad attempt isku day assault weerar waa qofka anqaad kugu soo weeraray oo ama shakhsi ku soo weeraray ama koox ku soo weerartay kale maadii
السلوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.